dalka maanta maamusha Djibouti iyaguba ma iraadaan prisonnier politique intaaban hayna ma iraadaan oo iyaguba ma sheegaan xisbi sheeganayana dad baa intaan laga xiran maanta oo sheeganayana ma jiro imika marka Daahir Axmed Faarax aduu yiri maaragtay je ne sais pas wax prisonnier politique xiran oo oran karaya il peut dire waayo isaga MRD-giisu hadday MRD ka xiran tahay oran karaan xisbigayga inta qofba politique ma yahay xiran laakiin xisbigiisna isagana kama xirnayn waxa xagan xisbiyaal jira Djibouti adaan ARD baa jira qofna kama xirno raad baa jira qofna ma sheegan CDU baa jira qofna ma sheegan Fruit baa joogto oo dawladda la shaqeysa qofna ma sheegan model baa joogto qofna ma sheegan PDD baa joogto qofna ma sheegan UN waxa jira maaragtay UDG baa jiro oo qofna ma sheegan iska daa xisbiyaasha kale ee badan adana ee gouvernement Djibouti la shaqeynaya iyaguba qofna ma sheegin marka xisb dadka soo dhan ma sheegan inay qof ka xiran tahay et le gouvernement djiboutien ils ont pas maaragtay dit war intaas baa xiran journalka laguma qoro intaas baa dhintay journalka laguma qoro politiquement waxba laguma qoro gouvernement Djibouti waxay sameeyaan ala hoosahan ba u likideeyaan way dhamaatay adan Facebook aan ka arkayna oo de maaragtay meel kale aan ka arkin waxa xiran saddex qof baa xiran waxa way runta in la isku sheegno waa muhiim saddexda qof ay xiran waxa weeyaan kow waa Fouad Youssef Ali Monsieur Fouad le pilote djiboutien Monsieur Fouad Hurriya laba ina Ali Cudan odayara Ali Cudan ina ku awoogu yahay baa xiran amba ina kiisinu yahay ma garnay isagana xiran yahay saddex waxa xiran mudane Cabdikarim xiran yahay Monsieur Cabdikarim xiran yahay waxa weeyaan anu mar hore waan ka hadlay waan u sheegay in arinta sida tahay waxa weeyaan annagoo arkayna xumaan iyo fiicni annagoo arkayna ina mar walbaba aan ka dulboono aan wixii aan ka dhigno waxa jirin waa waxay RBB-du mal walba shicibka iyo waxa kale uga badiso waayo RBB-du mar walba waxay isku dul taagtaa RBB-du iyadoo khaladkeeda waxba ma aragto laakiin qof aduu ka khaldamo way qaniintaa waxa weeyaan haddaan soo qaato Fouad Youssef Ali wuxuu ku xiran yahay ma affaire politique ba mise waa affaire personnelle Fouad Youssef Ali wuxuu ku xiran yahay wuxuu ku xiran yahay personnel weeyaan waa officier isdiideen superior officier-giisa isqabsadeen Fouad Youssef Ali oo ka carooday intaas oo ka daray intaas uu diiday intaas cadaalad buu ka waayay waxa loo sheegtay xoog baa loo sheegtay uu saga tagay meeshii wuxuu yiri wadankan anu kacno systemkan foosha xumle aan iska beddelna buu yiri waa goormee waa goortay officier-giisa superior officier-giisa isdiideen isqabsadeen weeyaan mais pas avant mu oran Fouad akana wadanka aan kacno waa markay isqabsadeen superior officier-giisa isqabsadaan labada rag waxay ahayd sidii caadiga ina la dhaxgalo oo la dhameeyo arintan si loo kala qaado bon gouvernement Djibouti waxay yiraahdeen waa 2 acteurs waa maxay waxyaalo kale way dul saareen waxay yiraahdeen hadana arrimo kale weyn diyaarad buu la baxsanayay wuxuu geenay Eritrea wax jirin bay been ka sheegan RBB-da lagu yaqaan beenta لكن alors c'était pas le cas Fouad Youssef diyaarad la baxsan la muhiim waxba laakiin waa nin waxa ka socdaa waa nin isdiideen supérieur officier isdiideen c'est après là qui s'est révolté contre le gouvernement djiboutien il faut la mettre sur la table la vérité anwa nabet oo qolada maxay noqotay ina Ali Cudan fahmi Ali Cudan inay ka haystaan RBB-du ma noqotay anigu ninka waxaan ku arkay isagoo le membre gouvernement isku taswiirayo taswiiruhu oo Facebook ka buuxan arkay isagoo ma aragtay
oo de maaragtay mar colonelkan maaragtay monsieur maaragtay colonelkan garde républicaine maaragtay monsieur maxaa la dhahdaa comment s'appelle ce monsieur Jama colonelkan monsieur Jama isagoo isku taswiro wax badan bay la xaqana waan ku haynaa. C'est comme si il avait un contact avec le gouvernement et lui ou de isu yaqanin ou isfahmiyin ou de dat isla yaqanin. Et lui il s'est révolté. Lakin pourquoi il s'est révolté isaga ma garanayo. Qu'est-ce qui se passe? Marka Fouad Youssouf Al-Dank son noqdo waxa lagu haystaa waa affaire familiale. waxaan ay beenta laga sheegay wax buu la baxsanay waxa isaguna wuu carooday waa affaire familiale waa nin laga xoog batay oo lagu haysto adigu maaragtay waa familial family baa iska haystay ina cali cudurna marka aan soo qaato waxaa lagu haystaa waa avis de pouvoir xoog baa loo sheegtay waa nin xoog lagu haysto wuxuu isaga waxaa dhibay in gouvernement Djibouti waxaa dhibay hadalladii uu hadlayay oranayay xaggaas waa mamaasan xaggaas waa mamaasan xaggaa waa mamaasan xaggaa waa meesha mamaasanku wada haysteen oo dhan meesha mamaasanku wada maamulaan oo dhan meesha mamaasanku ay wax ka helaan ay ka qabsadaan meesha mamaasanku wax geeyaan meesha mamaasanku dhaqaaq oo dhan buu garanayo uu wada sheegayay intaaba xanuunisay gouvernement Djibouti oo u badanna meelaha sare hadaa la sheego comme il disait mamaasan uma u badan intaaba la yiri war ninkan aas ka qaban waa mamaasan baa haysta waa avis de pouvoir xoog baa loo sheegtay ninkan waa nin avis de pouvoir lagu haysto c'est pas affaire politique waa avis de pouvoir waxaan soo qaadanaa haddana ministerka ministre de budget ancien ministre de budget de la République de Djibouti monsieur Abdou Karim maxaa lagu haystaaba meesha taala monsieur Abdou Karim wuxuu défendayay boqolkiiba 95 il défendait l'intérêt des familles d'Ismaël Omar Guelleh et l'intérêt du RPP et l'intérêt du président de la République de Djibouti et Foga Modana Ismaël Omar Guelleh ayuu défendayay Abdou Karim wuxuu ahaa ninkii hol markuu uu tagay ministeradu tageen ee hol weydiisatay waxaan u baahanahay maaragtay war dhakhtar baan u baahano maaragtay dhakhtar la'aan baan nahaysa Abdou Karim ninkii yiri anigu buljeega waan hayaaye ministerka markay weydiisteen uu yiri war inaguna warqadaad qorteen dhaxday soo socotaayo ministerkii uu soo tabiyo dhaxday soo socotaayo markay ii timaado lacagtii anaa hayo anaa saxeexayo RBB-du waxa way sameynaysaa wax badan ninkii yiri buu ahaa waa video baan haynaa waxaa jira Abdou Karim dhalinyarta ee dibadda joogta ee hadasha ninka la xiriiray ee maaragtay RBB-da ka qaboojiya iyo kuwa gudaha joogtaba ka qaboojiya ee ka dejiya ee shaqo geeya ee lacag yar siiya ee RBB-da ka dejin Ismaaciil odayga ka fadhiista oranayay mudane Abdou Karim buu ahaa oo Abdou Karim RBB-da iyo famille Ismaaciil Omar Guelleh iyo ma aragtay wixii meesha ma aragtay RBB-ba garab maraba ninka défendayay ahaa oo kaalmeynayay ayuu ahaa marka monsieur Abdou Karim l'ancien maratay des finances de la République de Djibouti ministre ka socdana ma ahayn parti ka socdana ma il était un ministre de poche buu ahaa porte poche maxay baa loo waa minister la iska soo doorto Ismaaciil soo doorto keenay buu ahaa parti uu ka socday mu jirin député mu haanayn maxay mu haanayn dawladda dhinaca ka mu jirinba waa la iska soo qaato waa la keeno okay marka il défendait 95% l'intérêt d'État marka isaga ma affaire politique ba lagu haystaa non affaire politique lagu ma haysto isaga mudane Abdou Karim waxa lagu haystaa waa affaire corruption waxa lagu haystaa Ismaaciil Omar Guelleh ku haystaa t'as détourné de l'argent lacag baa la waayay xageed marisay ba isaga lagu haystaa iyaas haysta marka waa Abdou Karim oo RBB-ya iyo chefkiisa Ismaaciil Omar Guelleh oo le président de la République de Djibouti ee Foga mudane Guelleh oo is haysta labada qof baa is haysta waxayna isku haystaan waa lacagta wadanka ayuu u xiray xagee geysay Abdou Karim aduu markii horeba
sida aan sheegayay uu iska domisooneyn lahaa iga raalaada. Hello? Yes. So you gave me I have your phone number, the zip code I have, that email that you sent, is that correct email, or is it supposed to be .com at the end? No. You said .4. No, and the end is not .com. In the end, you can see like you can put what I put there is FR. .4? Yeah, FR. FOR. F and R. Okay, so you made a mistake. Can you check your can you open text message, please? Yeah. Let me check again, please. Give me a minute. Yeah, because the showing to me is FOR. Oh, is Yahoo? You can do it. Yahoo.fr. Okay, FR. Now give me the numbers that I need also. What kind of number you need? Remember? That number, social security number. I need that also. Which number? Tell me over the phone. Social security. Oh, Social Security. Yeah, the number, please. All right, let me send you here too. Wait a minute. You don't have to send it to me, just tell me, sir. Yeah. God damn. Okay, you can write like 896. You need the last 8 or you need all of my social number? Okay. 896 25 1017. All right. Right now, it says everything over. Please take a look and make sure that everything. All right, you can send me now. Let me look at it. Try and send me now again. No, I just did already. And then just text me yes or no, okay? All right. I sent it right now. All right. You got a lot of your sugar. All right, send me an email. Okay, thank you so much. Awesome. Thank you, sir. Yeah, have a nice day. Thank you. Yeah, you're welcome. Just thank you. All right. Thank you, man. اقرا على هذا. And اقرا على هذا. And marka je suis désolé. Marka wax weyn Abdukarim Monsieur Abdukarim markii hore RBB-da isagoo la shaqaynaya oo maaragtay uu la joogayo, même si il défendait l'intérêt du RPP, il n'y a pas de souci, mais il fallait markuu arkay waxyaalo xunxun inay meeshan ka socoto, il fallait qu'il se démissionne oo iraado maaragtay en meeshan wax xun baa ka socda, en meeshan way dhibaato badan tahay, anu je peux pas être là inuu iraade oo maaragtay isagu personnellement ou iska tagay iska démissionniyo Mudane Abdukarim, mais il n'a pas démissionné. Isagoo meeshii jooga yaa la xisaabiyey, waxyaalaha la waayey, wixii iyagaas garanaya, sidii baa gabadh lagu geeyey. Waxa weeyaan Mudane Abdukarim runta haddaan sheegno, il défendait l'intérêt des RPP. En affaire politique baa lagu haystaayo, Ismaaciil buu wuxuu ogaa inuu president noqon karayo, inuu waxaan shaqayn karayo, inuu president de la République noqonayo Abdukarimo, inuu waxa no Ismaaciil Cumar Geelle ma ilaahay baa markuu ogaanayo inuu ninkan maaragtay uu president de la République uu noqonayo.
dadkii baa jeclaado dadkii maxay waxaan waa intuu dadkii maaragtay xiriirka isla lahaayeen oo Cabdikariim wax siinayay dadka unbaa maaragtay buuqa wada war waxa weeyaan anuu addaa Cabdikariim ku deefoondeynaysiin maaragtay in lacag ku deefoondeynaysiinna waa dhib weeyaan haddaad ku deefoondeynaysiin maaragtay qabiilna waa problem weeyaan hore socod ma arkayo war anuu daayir Axmed Faarax c'est pas mon ami c'est pas qof aan meel aan wada fadhiisanana ma wada sheekaysanaba mais c'est un homme u socda meel buu u socdaa siduu u socdana sidii xaqii buu u socdaa waan arkayaa moi je suis pas four là-bas moi je suis pas Issa anuu ninkaa canfareed baan ahay moi je suis Haïssé Mali moi mais waxaa jira pourquoi je le défends